ka waxaan taariikhdu tahay 2 bisha Oktoobar 2022 waxaa xarunta dhexe ee headquarter-ka ciidanka booliiska Soomaaliyeed isugu yimi taliyaha xigeenada hogaamada fadhiyada madaxa bannaan iyo dhammaan saldhigyada magaalada Muqdisho iyagoo isaga tacsiyadeynayay geeridii naxdinta lahayd ku timi Sareeye Guuto Farxaan Maxamuud Aadan oo shalay la soo aasay ilaahay isagana jannada inuu ka waraabiyo ciidankana uu u noqday intiisa kale tusaale fiican baan isugu nimaan ka wada hadlaynay waxaan kaloo sarnay oo meeshii uu ka baxay iyo shaqadii uu ku baxay inay sideeda u soconayso oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed darajo kasta ha lahaado gobolku raba ha joogo dowlad goboleedku raba ha joogo inay hawshii uu ku dhintay meesheedii laga sii wado oo waliba la sii dardargeliyo oo ay ka muuqato ciidanka booliiska Soomaaliyeed inay ka sii qaadaan geesinimo iyo go'aan qaadasho adag iyo ka qaybgalka dagaalka lagu jiro nimanka argagixisada ah waxaan kaloo iyadana isugu sheegnay inaan ciidanku ay la shaqeeyaan bulshada ay wada shaqeeyaan sida loo ogsoon yahay ciidanku waa farsamo waa technicians laakiin dadka la rabaa inay shaqeeyaan ee dowlad goboleedyada xarunta dhexe magaalada caasimadda degmooyinka dhammaan in dadka jooga ee ku nool amniga inay ka wada shaqeeyaan iyagoo booliiska la shaqeynaya oo ay gacan ka helayaan si wada jir ah isku mid ah isku qadiyad ah in shacabka iyo booliiska iyo hay'adaha kale amniga oo dhan iyo dawladdu sida uga qayb galayso in laga soo qayb ka wada qayb galaan tan afraad iyaduna aan meesha ka sii sheegay waxa waaye shalato madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tacsi u diray ummadda dhammaan Soomaaliya wuxuuna aad uga hadlay argagixisada iyo aafaarta iyo dhibaatada ay dalka ku hayso ayuu aad uga hadlay anagu ka mas'uul ahaan inaan madaxweynaha aragtidiisii iyo warkiisii cadaa inaan ciidankan xukunno sii gaarsiino hogaamada fadhiyada saldhigyada dhammaan fariinta uu nafaray inaan iyaguna sii gaarsiiyo si iyaguna ciidankooda ay u sii gaarsiiyaan intaasaan maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarunta dhexe laga maamulo